gudoomiyaha xisbiga UCID ayaa waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalooyinka Gabiley iyo Arabsiyo. wariyahayaga Sakariya Nuux Ibraahim ayaa warbixintaasi inoo faahfaahinaya. gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID Injineer Faysal Cali Waraabe iyo wafdi ballaadhan oo hogaaminayo ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay magaalooyinka Gabiley iyo Arabsiyo. gudoomiyaha xisbiga UCID iyo wafdiga uu hogaaminayo oo markii ay soo gaareen deegaanka Caabudlo ee bariga degmada Arabsiyo ay halkaasi kaga hortageen maamulka iyo taageerayaasha xisbiga UCID ee gobolka Gabiley ayaa waxa markii ay soo gaareen degmada Arabsiyo waxa si diiran halkaasi ugu soo dhaweeyay taageerayaasha xisbiga mucaaradka UCID ee degmada Arabsiyo. waxaanu halkaasi gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID Injineer Faysal Cali Waraabe xariga kaga jaray xafiis cusub oo xisbiga UCID ku yeelanayo degmada Arabsiyo. cuntada la soo baxnaan jecel cuntadeena inaan galay la soo baxno inaan qamadeen la soo baxno ayaan jecel insha Allah taala. reer Arabsiyo waxa wax ku noqonaysaan oo inagu deeqaysaa waa cadaalad ma taqaadana walaalayaal. cadaalad baan wada doonaa cadaalad ma taqaadana qabiil ma jiro qabiil wala ma jiro hal family baynahay family bayn waxaan ku abtirsanaa marka hore dad muslimiin nahay magdad reer Soomaaliya nahay ilaahay hortii baan u simanahay walaalayaal yaan qabyaalada way hasuulina walaalayaal qaranka qabiilada meel wada galaan Soomaaliya meel wada galaan marka waxaan jecelahay Arabsiyo wada leeyahay oo loo kala heeneen oo loo simayaan sameeyna Gabiley la wada leeyahay oo meeyay ku noqon karo cid ka soo reer Soomaaliland ومير كوكيشان وندونو ومدقان نقولكرو وقولكرو نقولكرو سمعنا إن شاء الله تعالى. intaasi kadib gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID iyo wafdiga uu horkacayo ayaa waxa ay u soo gudbeen dhinaca magaalada Gabiley oo mas'uuliyiinta xisbiga UCID ee gobolka Gabiley iyo boqolaal kamid ah taageerayaasha xisbiga UCID ay si diiran ugu soo dhaweeyeen iyagoo kaga hortagay kantaroolka bari ee magaalada Gabiley oo loogu diyaariyay dibi meeraran ee ay hidaha iyo dhaqanka u leeyihiin shacabka reer Gabiley iyo agabka beeraha lagu qado iyo sidoo kale hal irmaan oo nirigteedii wadata. waxaana halkaasi ay maamulka xisbiga UCID ee gobolka Gabiley u soo galbiyeen xubnaha wafdigaasi dhinaca gudaha magaaladaasi iyagoo socdaal ku dhex maray gudaha iyo shaaracyada magaalada Gabiley. socdaalkani oo ay ku soo afmeereen xarunta guud ee xisbiga UCID ku leeyahay magaaladaasi Gabiley halkaasi oo gudoomiyaha xisbiga UCID kaga jaray xariga xarunta cusub ee ay ku leeyihiin gobolkaasi Gabiley. halkaasina kala hadlay dadweynaha gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID Injineer Faysal Cali Waraabe inaan sameeyno oo maanta inoo sameeysan dawlad iyo dad iyo qofalayaan ka noolyihiin inta kale ay tahay shiniyo ingegti ummadii kale oo shiniyo markaas anu waxaan doonayaa inuu la walaaloodaan inaan dhisno Soomaaliland cusub oo milaysan oo sharciga u milaysan oo waxtarka u milaysan oo biyaha u milaysan oo qof kasta aqoontiisa wax lagu siinayo dhalinyarta halkaa taagan haddaan qaran helin haddaan dawlad helin haddaan cadaalad helin yaraanta ku dhiman doonaan. waxaan idin sheegayaa reer Gabiley inuu waa istaqaanaa xusbi aan iman xusbi u horeeyay iyo baa laba kun iyo kowdii kelmadda la yidhaha dhexda gobol ee Gabiley aniga santi baa soo saray Ilaahay naxariis subxaanahu wa tacaala. waa runtiisay anigu 2009 baa isku keen dambeysay intii ka dambeysay waa dhaafi jiro goormaan u dhaafi jiro laana waxaan ahaa horta bahasha qabyaalada ah ka soo xaraarad gooyay mal أنا وحنا هاي مشرح Soomaaliland ما هاي مشرح إذا قال لي سعد مصاب يا شيء ما يموت ولكن واحد شرق ورانية طلع يا سعد مصاي طلع يا هبل يوزاي هذا واحد صعب واحد سمعوا هاي دولتنا واحد إلى دولتنا واحد إلها دولتنا واحد إلها والدولة الاستقبال إلها دولة غول الاعتراف وين تصعد مسمى الاعترافية وهذا يسمى الاعترافية الصومال وإحنا ولا الاعترافية أول شيء أنا هو بحنا اللي تجوا يا بحنا أنا يصنع ما هو بحنا تاسمون اللي في الشتاء
waxaa kaloo iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin sarsare oo ka mid a xisbiga mucaaradka ucid iyo guddoomiyaha xisbigaasi ucid ee gobolka gabiile cabdilaahi daahir iyo sidoo kale xogayaha xisbiga ucid ee gobolkaasi cabdiqaadir muuse cilmi waxaan leeyahay injineer faysal cali waraabe gobolku waa gobolkaagii gobolku waa ohaya gobolku waa gobolkii codka gobolku waa gobolkii codka waa gobolkii dhalinyarada waa gobolkii lagu tartamayey rag iyo haween dumar iyo carruur dhalinyaro iyo cuqaal in xisbiga cadaaladda iyo daryeelka sanadkan aynu injineer faysal cali waraabe saarnay taashkii guusha heer gobol ee gobolka awdal oo halkaa uga yimiday inay maanta kala qayb qaataan barnaamijkaasi aan u soo diyaariyey injineer faysal cali waraabe iyagana waan u mahadnaqayaa iyo saraakiisha xisbiga aad iyo aad bay munaasabadii aynu doonayna quruxda badnayd ee bilaa rabshadahayd ee laynoogu bartay xisbiga ucid xisbigaamid waxaa looga bartay munaasabado bilaa rabshada waayo waa xisbiga qarannimada somalilan isagu haya maanta labada xisbi ee waddanka ka jira waxay diyaar u yihiin rabshad iyo qaralaase iyo dagaalkii sokeeye inay dalka ka ridaan laakiin xisbiga ku duuban maanta inaanay qarannimada somalilan waxba noqon waa xisbiga ucid sidaa daraaddeed baynu inaguna isugu nimintay waxaynu nidhi qabiil dooni mayno xisbiga kulmiye halka uu jiriddiisu tahay waa gebiley gebilayna waxaynu sheegaynaa inuu ka unkay qabyaaladina middaa lay dadku isugu imanayaan ma aha dambiiliye eedaysane inaan maxkamad la geenin dembi lagu caddayn ku lahaa waa dembiil laakiin maayir iyo barasa waxaan idiin keeni doonnaa waxqabadka ku suutan oon dalxiis u tegin hargeysa iyo hoteeladeeda ee shaqeeyo gobolka shaqeeya xisbiga kale waad ogtihiin ilaa maalinkaynu samaysannay baarlamaanka timaha isugu daban maalin walba waa la dhex gelayaa qodob sharci oo kala saaran lama waayin ee xisbiyadan sharcigii doonayn weeye waxaad ogtihiin maalmihii dhawayto waxyaabihii dhacay xergaabo ka dhacay dhaawac baa ka dhacay dibashaa ka dhacday kaambeyn bay samaynayeen labada xisbiga kaleeto kaambeynkaa markay samaynayeen oo dad ku dhimanayey xisbiga ucid anigaa joogay markaa xergaabo guddoomiyuhuna laascaanood u joogay waxaannu ilaalinaynay oo aannu kaambeynka u samayn weynay sharcigii iyo dastuurkaannu ilaalinaynay iyagu sharcigii iyo dastuurkii way ku turteen oo way ku joogsadeen sakariya nuux ibraahim Somali Cable gobol